su-aasha inta ugu badan la weydiiyo dhanka luuqadda Englishka waa sidee baan isu bari karaa anigu luuqadda Englishka ama u sameeya wax loo yaqaano self study. Horta ugu horreyn waa inaad base-ka ka dhisan tahay luuqadda marka hore. Haddaba haddii aad base ka dhisan tahay 4 qodob baa lagaa rabaa inaad sameyso. 4ka haddaad sameysid waa hubaal inaad luuqadda Englishka baranaysid uma baranaysid sida dhalad. Qodobka koowaad waa maxay? Waa qodobka loo yaqaano reading, inaad wax akhrido. Haddii aad wax akhridid luuqadda Englishka waad baranaysaa. Haddaba su-aashaad isweydiinaysa baa ah maxaan akhriyaa? Inaad articleska akhrido, wararka caalamka, wararka ciyaaraha. Sidoo kale aad samayso inaad sheekooyinka akhrisato luuqadda Englishka ku baxaya. Sheekooyinka qaabkeebaad u akhrisan kartaa? Maxaad ka faa'iiday? Waxaad ka faa'iidaysaa inaad erayo cusub kala baxdo. Qaabkeebaad ugala bixi? Sheekooyinka sidee baan u daawadaa? Waa su'aal jawaabteeda aan ku siinayo daawo bal muuqaalka qaybtan. Hello and welcome to Read and Learn English. Today, you will listen to a story full of emotion, secrets, and surprising truth. This story will help you improve your English while you follow a life-changing journey about love, judgment, and hidden identity. Have you ever been judged for your choices? Have people ever laughed at you because they thought you made a mistake? Qodobka labaadna waxa weeye in lagaa helo listening, dhegeysi. Iminka anigu way igu jirtaa, reportskayga way igu jirtaa. Inaad wax dhegeysato adoo shaqaynaya, adoo soconaya intaba aad dhegeysan karto, khaasatan luuqadda listening aad samayso. Qaabkee loo samaynayo? Ugu horreyn waxaad dhegeysanaysaa podcast. English Leap Podcast. Hey everyone, welcome back to the English Leap Podcast, the place where you can practice real English and think about your life at the same time. I'm Anna. And I'm Jake. Thanks for letting us jump into your headphones today. Sidoo kale waxaad dhegeysan kartaa sheekooyinkii markii hore aad daawanaysay aad ereyada kaga baxaysay ayaa listening ku noqon kara. Waad dhegeysan kartaa. YouTube-kuna wuxuu soo kordhiyey feature ah in mobilkaaga adigoo ka baxay qaybta app-ka aad ku jirta markaa haddana aad dhegeysan karto sii daawo karto. Qodobka saddexaad waa maxay? Qodobka saddexaad waxa weeye waa watch, inaad wax daawato. Taana waxaad iga weydiinaysaa maxaan daawadaa fiimaanta yaryar sida tan oo kale ah. Have you ever wanted to run away from home? Tom did. And it was the biggest mistake of his life. What happened? Let's find out together. I won again! This game is amazing! Tom played games all day. He forgot to do his homework. Hi, teacher. What? He got an F in math? Thank you for telling me. Goodbye. Qodobka labaad ee daawashadaada wuxuu weeye inaad daawato ninka loo yaqaano Darwin. Darwin wuxuu ka hadlayaa qisooyin iyo ruuc cajiiba. Qisooyinka marka aad daawanayso waxaa la doonayaa inaad ka barato phrases cusub, jumlado cusub, laba jumlo, saddex jumlado cusub kala baxa. Dhacdooyinkana ciwaankooda unbaa la iska eegaa, dhacdaba xiise iyo xaalad gaara bay leedahay. I'm so sorry, Dad. You're always sorry. When are you just gonna start learning from your mistakes? You know what? Head upstairs, because you're grounded. What? No, Dad, please. I don't want to be grounded again. See, this is what I get for not yelling at you more. I'm headed to Frank's house. When I get back, I'm gonna deal with this. Intaad ku guda jirto Darwin daawashadiisa marka laga rabo inaad samayso waxa loo yaqaano jarawin trick. Inaad iska dhigto sida dadka luuqadda ku hadlaya ee u dhashay marka. Intii filimka la yidhi sidan oo kale u samee jarawin. Jooji, haki, kabacdi u soo celi wixii uu yidhi. Inta afraad ee u dambaysa waxaad samayn doontaa in aad applications-kan isticmaasho luuqadda Englishka oo qaarkood speaking-kaaga ku dhisto oo dhanka practice-ka ay ka caawiyaan. Tusaale, inaad maalinta 15 ama 30 minute aad ku samayso practice. Waxaad ku samayn kartaa iminka kale tusaale, waxaad iminka kale ku samayn kartaa practice-ka ChatGPT markaad soo dhisantay base-ka iska soo dhistay si fiican luuqadda qaybta hore si aad uga soo barato. ChatGPT-gu qayb wuxuu leeyahay call ah oo aad garaaci karto, qayb cod aad u duubi karto oo aad kula sheekaysan karto.
Hi, how are you doing? Yeah, absolutely. I'm really glad to hear that. If there's anything on your mind or anything you want to talk about, I'm here for it. Alright, I got it. I just want you to tell me how I can improve my English speaking. Yeah, absolutely. So, one big thing is just getting more exposure. Listen to native speakers a lot, maybe podcasts, watch shows, and then practice speaking out loud as often as you can. sidoo kale waxaad isticmaali kartaa application loo yaqaano Duolingo waxaad isticmaali kartaa applicationka loo yaqaano Hello Talk waad ka helayso dad dhalada oo aad practice la samayso